waxaa deegaanka Daarusalaam ee degmada Galdagob ee gobolka Mudug maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loo qabtay ardayda macadka Daarul Qur'aan kaasoo ay ka soo qayb galeen maamulka deegaanka Daarusalaam culimaawidiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka iyadoo markaasi shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah halkaasi lagu guddoonsiiyay ardaydaasi nabigu sallallahu wasallam alayhi dadka waxa uu khayr badan buu yiri macallimiinta ama mashaayikh ahaadeen يعني الشيخ مركا للياي أو الشيخ هذا الدرس جو آخرينه ومعلم معلمنا واحد اللي هذا كوا خير كذا كبرها يا الناس بي الخير بي الناس بريا خير كي خلق بريا كوا صار معلمينا يعني مشايخ مركا ومن جهة التعليم لكن هو معلمين كوا قرآن كبريا كوا عاشر كبرها وعلم كبرها ومعلمين ذات كي خير كبريا marka waxaan ku soo ururinayaa kul makaan lahu maqal xafladeenan sharafta badan oo laga soo agaasimay oo macallimiinta iyo mashaayikhdu ka soo shaqeeyeen waan u mahad celinaynaa anoo barwaaqay waxaan galabsan baa ilaahay inuu nasiiyay ilaahay wada mahadle carabka ku celceliya alxamdulillah عود لسانك على كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله تأتيك سعادة هذا الحمد لله إذا بديصه سعادة يلي ما أنت كوي مانسة لا تكثر الشكاية عوشة يشاقتك هبضين فتأتيك الشقاوة أيان ضراء أي كوتي ما دول لغا قدره دير صدا والله قدره شكريانا والله بطشاه عرفك لغا شكريا واقيب من وحال إلى الشكر بالجنان قلبك ولا شكريه نعمة أن حيصنه وحان دلال كان كوكيرني يا وحان قلب صني يا وحان أنا وني من ما إلهي من نقول تفضل الحمد لله رب العالمين. اسم المركز مركز كما عيسو مركز دار القرآن الكريم لتحفيظ القرآن الكريم وتربية الإسلامية. مركز كما عيسو ودار القرآن قالوا برنا يا قرآنك حفظين تيسا يا تربية إسلامية مقر كيس رئيس ومركز وكيالو ومدي مقالة الراسوي إلا يسكحرو ضدك دون يدنين يا قرآنك برشديسا مجتمع إلا يسكحرو رسالة سنمعت كودريا أيضا أول يسكحرو يا ضدك سنة رجين لقى رجين يا ثوابل. عين سكون مع نبيل سكون ماذا ماشي وقيم بين الله سبحانه وتعالى بلاده وجعل ومساجدك الله سبحانه وتعالى. واحد ثانيا الله بيو إنه نوحى ويدو لا يكورو يا مركز كي لفري دار القرآن كها ولي وقت جابان فرنا أدو لا يكورو يا بل الأرضي دي ضلابتي دجنيسي أو أيقو هرر كله بل وحي أي برتين واردين يو معلمين يو علماء يو ضيال دمان تينا بيننا دغيسنو ادو لا يكورو ياغو ليتحاميو وها الحمد لله الهي ما ديسيا inaynu maanta meel ادو لا يكورو qiimo badan aynu joogno waxaan soo dardaarmaynaa marka ugu horeysa ilaahay cabsidiisa aan soo dardaarmaynaa marka labaadna waxaan soo dardaarmaynaa dhalinyaradu oo xirta wax baranaysa iyo kuwa yar yar intaba waxaan leenahay dadaalka hadda iyo meeshaad joogtaan inaad hore u socotaan mooyaan inaad ku dadaashaan inaan gadaal u soconin aad dadaashaan ku dadaashaan waxbarashada waqti gelisaan ku tartantaan sidaas baanu idin dardaarmaynaa Allah idin siyaadiyo waad wanaagsan tihiin laba qof oo isku daa oo isku mid ah iyo laba qof oo macnaha wada dhalatay بإلهنا قف شرف يعز يكرامة الدين تاب كم وشريا قفنا وهريا واحد تصالح إلى كفرا دار السلام بعد تصالح إلى كفرا هذا يتغير تام كدريا هذا يرجعين أنت يوالين لكن واحد ياهم كدريا دار السلام بعد يرجعين إلى كفرا قف كسر وحقادنا يا انتاس مساجد كهذا إنه كفردينه أو قروح العسلة أو ضيال يا علماء يا عقل إله يا أنت هذا مهرده فرديده أرض اللي يرد إلا دلتها بلا نسوفيرين أنت كلي نسوفيرينه اللي يرد أنت عنك بدن بتشوكته سوق تشوكته
dadkii waaweyne intaan inka badan baa joogta suuqay joogtaa tusaale intaas ayna ku qof kasta wax galay tusaale intaas ayna ku filan subhanahu wa ta'ala khayr badan ilaahi subhanahu wa ta'ala hasi khayr badan oo weyn ilaahi hasi yaaleen waxa meesha ka muuqda wax weyn wixii ardada la oran lahaa waa la yiri laakiin waxa leenahay dadka quruxda leh waxa halkaan la kaga fariisii oo halka ayaga loogu soocay oo gabdhihii ma sha Allah halka waxa weeye wiilashii halka waa waxa ay xambaarsan yihiin iyo waxa ay ku hawlan yihiin iyo waxa ay baranayaan way waxaan leenahay meel la fariisto meesh u fiicneed baa leena fariisiyay intaasna waxa iskugu timin waadinka qof walba uu saa u dare runtii juhdi badan bay galiyeen shaqo loo baahnaa in garbaha lala qabto oo laga yaabo culimada iyo macallimiintu inay kaligood ku noqdeen bay waxa kale yiraahdo halka wax ku soo gaarsiiyeen haatan waxaan rajaynayaa inay halka ka sii wadaan deegaanka iyo dhalinyarada iyo culimada iyo odayaasha runtii waxaan aad iyo aad uga codsanayaa in arintaas mataqaana guddi laga noqdo sidii horeyba loo sheegay alxamdulilaahi rabbil caalamiin anoo ku hadlaya ardada ku jirta markaska daarul qur'aan waxaan rabaa inaan tiriyo fawaa'ida aanu ka helnay markaskan ama uu leeyahayba fawaa'ida uu leeyahay waxa kamida mid horta aan la qarin karin oo hadii la qariyana ay ka iimaanayso ay tahay nibca ilaahayna siiyay aanu qarinay oo ay tahay quraanka ilaahay faa'iidada uu leeyahay quraanku xaraf kasta fadiila gaar ayuu leeyahay sida rasuulku noo sheegay sallallahu alayhi wasallam faa'iidada labaad uu leeyahay waxa kamida asagoo hadda muddo kooban oo 3 bilood ah aanu ku jirnay ragga inay xifdisan yihiin qaybta ugu horeysa 12 juz hadda madaxa ay galiyeen 12 juzna ay xifdisan yihiin quraanka lafdi ahaan iyo ahkaamtiisa labadaba ay xifdisan yihiin waxa loo ogaaday waxbarasho oo dhan cilmi oo dhan diinta iyo cilmiga sharciga baa wuxuu yahay baa furo ah aad baa idin salaamaya kamid waa soo kooban yihiin waa laga hadbaday assalaamu calaykum waxa la rabaa waxa tiin muraayadii la daawanayay waxa tiin ardada yarka idinkeena daawanaysa waxa iska ilaalisaan maaliyad ina magaalada ku dhaxmadha waxa iska ilaalisaan cimaamada ina ku dhaxmadha waxa iska ilaalisaan kullusida ina furtaan calaamatul jirri way kullusida oo la furto waalidiinta sharafta leh oo dhashay ardadan qurxaha badan waxaan leeyahay hadii jadwal habaysan naloo keenay waalid kaste laba buug iyo kitaabkiisa ha qaato buugana ha ku qorto sida loo sheegay wixii ka bedelan suu ula socdo ha ku qorto ilmihiisu say muddo yar ugu dhameeyaan quraanka insha Allah uguna xifdiyaan waxaan rabaa markaskan daarul qur'aan asagoo si kooban ah sidii macallinka iyo culimadu inooga warbixiyeen waa markas qur'aankii lagu xifdinayo markii ilmihii qur'aankii xifdiyeen shahaado caalamiya oo ku qaadanayo waa markas ka shaqeeyo Soomaaliya Itoobiya Kenya Djibouti inta waa ka shaqeeya horta midaas sidaas inaa ogaataan midda labaad sida sheekhu inoo sheegay waxa ku xigo macahad asaguna dugsi sare ah oo daaru xadiis la yiraahdo oo ardaygu markuu ka soo baxo oo qaadanayo shahaadadii oo jaamacadda ku haleeli lahaa anigu shakhsiyan waxaan ahaa runtii dadkii ugu horeeyay oo xarig jaray markii la furayay markaskan maantana caruurteedii baa ku jira oo dabcan waqti dhow ayaguna ka qalin jabin doona faa'iidooyinka laga helay bay ka mid tahay oo marxaatiga ka nahay ardada waxaan leenahay waxaad haysataan jaanis fiican laga faa'iideysto sidoo kale culimadana wixii aad risaaladana soo gaarsiiseen waa ka faa'iideysanaynaa